Minneapolis halka aad u jeedaan waxaa lagu dilay galabtan oday Soomaali ah oo runtii ka mid ahaa jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolkan Minnesota. halkaanu taagannahay waa suuqa Soomaalida ee ugu weyn ee Carmel Mall wadada ka soo horjeeda ilaa haatan lama oga cidda ay dishay. waxaana loo qaaday beedkiisa isbitaalka si loo baaro. ciidanka booliska ee gobolka Minnesota ayaa ku hawlan sidii ay u soo baari lahaayeen ayagoo runtii laftirkoodaba booliska aysan ogeyn ilaa haatan. goobjoogayaal Soomaali ah oo runtii aqoonna u leh ee halka lagu dilay ayaa waxa ay noo sheegeen inuu ahaa nin runtii aad u wanaagsan isla markaasina ka shaqaynayay bildimada Soomaalida ay degan yihiin wuxuuna ka ahaa shaqadiisa security-ka ama ilaaliye. haddaba jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ayaa mar walba dhibaatooyinkan marka ay soo food saaraan ay aad ay ula murugoodaan dhibaatooyinka noocan oo kala ah. bismillaahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta nin aad iyo aad qaali u ah baa dhintay oo walaalkeena Cabdi Xaaji aadan Soomaaliyay waad u jeedaan dhulkayagiina waan isku leeyaynaa halka kana way ka bilaabatay marka inaad dadaashaan oo gacanaha isqabsataan oo wixii dadka dilayo dhibahaya inaan iska wada qabanno aan ka wada shaqeyno. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. magaciisa loogu yeeri jiray hadda waa marxuun. waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo eheladii uu ka geeriyoodana oo nooga dhaweeyna sabri iimaan Allah ka siiyo. xaq darro ku dhintay gacanka xaq darana dishay faraska aakhira Allah uga dhigo isagana kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo. waxa qofka dilay marka yaa loo maleeyaa ma Soomaali ba masdad kala ayaa la wadadaan waa wada xun oo dadka lagu baaran jiray dadkana lagu dhibaateey jiray oo mugdiya ilaa hadda Cabdi Xafiid sida ninkan walaalkay uu sheegay nin ahludiin halkaas security ka ah oo ahaa qof ay isqaban karaan ay yareen laakiin waxa lagu eedeynayaa ama aan isleenahay inay isu yimid wixii jeebkiisa ku jiray inuu u dhintay aan qabnaa maadaama oo lagu yaqaanay nin buug iyo dokumentiyo iyo kitaab ku wata boorso yahay si qurxoon u labisan intaas inuu eed u dhintay oo image-kiisa u ekaanin wax haysta. Kan Hussein warbaahinta qaranka Soomaaliya Minneapolis.